بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبا channel كنا فرحية وكشين أصحاب تقاليق مركل إي مقال عصب جمعة وناكسن دمانتينا ما توحان إنو وضا عسريد فاميلكا كاكا عواي وقدام بينتي نسان أيو كسو بحي جيلا عددن كعرفت لغم شيكين كرو step by step سيدان أسميي وحيابي أن كسميني داوشة وناكسن سرت كاكا على قدر أيان رأينا إذن كده بقيو يا أصدق أنا أوجد حتى سريد إن لو كري لهم ملينايو ما شاء الله تبارك الله. markuu wax soo qaatay 4 xabo ukun ah. ukuntii 4 xabo waxaan ku soo riday baaquliga kadibna waxaan ku darayaa hal bakeeri oo sokor ah. ukunta iyo sokorta ugu yaraan 5 daqiiqo ayaa qasaysaa inay aad u xumbayso sokortii dhamaato cream camal inuu noqdo la rabaa. si fiican ayaa u soo qasayaa. ugu horeyn hadii ku cusubta channelka waxaan ka codsanayaa subscribe na taawatid kadibna gambaleel ka taawo si muuqaal walba u soo dhigo kugu soo dhaco insha Allah. hadii aad gambaleel ka taawatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeya. dhammaantiin waxaan idinku codsanayaa muuqaalkan inuu noqdo kii ugu like badnaa 1000 like na gaarsiiya. waa igu codsi waa mahadsantihiin. saana la rabaa ukuntii iyo sokorta inay kusoo baxaan sida hadii idin muuqato. intaas kadib waxaan soo qaatay hal qaado oo heel shiidan ama vanilla ku darsan kartaa. heelkii waan soo shaqshaqaayaa. intaas kadib waxaan soo qaadanayaa hal bakeeri bakeeri wax yar dhiman waaye oo subag ah ama sixin. bakeeri wax yar dhiman oo sixin ayaan ku shubay. intaas kadib waxaan ku darayaa 3 qaad oo caano yoogad ah ama caanaha fadhiyo. caano yoogad kadib aad ku darsatid kaakaca asaga dhan kaala argu ku noqonaya ma sha Allah. intaas kadib waa isku qaseynaa. asxaabtaygu cusub qalbi furan iyo wali niyad saafiya soo dhawaada channelka hore u gal. waxyaabo badan ayaad ka faa'iideysaa adigoo gurigaaga jooga ayaad cunooyin kala duwan ka baran kartaa ma sha Allah. dhinac ayaan u dhigaynaa. intaas kadib waxaan soo qaatay 4 bakeeri oo bur ah. waxaan ku darayaa hal qaado oo baking powder ah. baking powderka ha ka buuxinin. hal qaado kugu filan. 2 qaado oo warangaan ku darayaa. warangada hadii ay heli karin labaniyada ku darsan kartaa ama kastarka qobis uu yaqaano. wuxuu ku noqonayaa kaakac aad u jilicsan. intaas kadib markaa sida isugu qastid burkii waxaad soo qaadanaysaa ukuntii afaarihi ku diyaarsanaa kadibna burkii ku soo gudinaynaa. kadibna waad isku qasaysaa si fiican ama makiinadii aad ku qasi kartaa hadii ay heli kartid. hadii kan gacantaada la galaysaa oo si fiican ay u qasaysaa. burku waxaa la rabaa inaad si fiican u qastid. burkana inuu ka adkaado lama rabo. bur jilicsan inuu ahaado la rabaa. burka qasitaankiisa hore haduu ka adkaado kaakacan uu ka adkaanayaa. biikaan ku soo walwalaaqaya marka hore makiinada weyn aan rabaa inaan ku qaso. intaan hadda ku filan burka laguma daraayo. kaakaca markaa sida u qasatid hadii caano mise biyo gadaal uga darsid waxaa asaga dhan wuxuu ka noqonayaa bur. marka hore u qiyaaso. baaquliga weynka rabaa inaan ku soo gadiyo. baaquliga makiinada wato. qasitaan fiican u baahan yahay inaad si fiican u qastid. mashiimankan ayagana diyaar waa hadii u baahan tahay waa helaysaa ila soo xiriir insha Allah. ilaa 2 daqiiqo ayaan ku qasayaa. markuu si fiican u qasmo waxaa hore la ka sameeynaa. hore ka qas hore la ka sameey waaye. hadda waa diyaar. burkan waa dareemi kartaan sidoo u jilicsan yahay. bur jilicsan saan inuu ahaado la rabaa. intaas kadib waxaan soo qaatay wax yar oo bur ayaan ku dadaadiyay. kadibna asaga dhan ba hal mar aan rabaa inaan fidiyo. wax badan ba ma sameynin waa kiilo wax yar dhiman. wax yar oo bur aan ku dadaadinayaa. intaas kadib waan fidinaynaa insha Allah. markaa fidinaysidna qafiif ha ka dhigin. hadii aad u qafiifisid waxaa waaye uu ka jajawaay ma fahanti wax qallafsan oo adag oo jajawaay uu ka noqonayaa. waxaa la rabaa burka wax yar ko inaa yara buurisid. markaad qastid ugu yaraan 5 daqiiqo waa dhigi kartaa ama 10 daqiiqo camal aad dhigi kartaa. kadib sida u fidsan kartaa.
intay saliid ka kululaanaysa baan dhigay. Hadda saliid waa inoo kululaatay. intaas kadib waxaan rabaa inaan soo jarjaro markaa sidaa u fidiyo. qafiif aadna ma ahan, waa dareemi kartaan. intaas kadib waxaan soo qaatay mindi, kadibna waan soo jarjarayaa. waaweynaa ka dhigan kartaa, yaryariisaa ka dhigan kartaa. mindida usoo qaadanayaa. bismillaahi raxmaani raxiim. saana usoo jarjaraya sida hadda idin muuqato. aadna uma waaweyno, aadna uma yaryaro. kadib dhexda ayaan sidaas ugu maxaa la dhihi jiray uga jeexayaa. kaakac wuxuu ku fiican yahay isbuuc camal wuu ku yaali karaa. weel aan biyo lahayn, caag dabool leh haddii aad u heshid ku guratid. galab walba casiriyo samee, waa ka nasanaysaa. haddii marti ku imaanaysa, haddii caruurta iskoolka imaanayaan iyo yaa hadduu xaaji kuu joogo waxaan ku dhahay soo bixiye shaah yar u samee hore leh laga cuno waaye. howl fududaan waa buskudka ama kaakaca sidiisaba. waa u jeedaan saddexdaas ayuu noqday, saddexdaas saxan ayuu noqday waaweynka ah. intaas kadib saliidi waa inoo kululaatay. hadda waxaan rabaa inaan soo kariyo. saliidaan rabaa inaan ku dubo. saliid waa inoo kululaatay. bismillaahi raxmaani raxiim. saliidaan kusoo gurayaa. saliidda markay karkarto kuleel ay noqoto dabka le u yareynaysaa. haddii aad dhahdid boobsiisan ku karanaya waxaa gudaha kama karaayo. gudaha ceyriin camal ka noqonayaa. tartiib tartiib la rabaa inaad bislaysid. marka hore saliidda la iska kululay. waa ujeedaan saas quruxda badan ayuu kusoo baxay maasha allah. waxaan soo qaadanayaa baastamiirkii ayaan kusoo gurayaa. dhammaan saan ayaan kusoo karin doonaa insha allah. waa ujeedaan waaw maasha allah tabaarakallah. ugu dambeyntii kaakiciisaas ayuu kusoo baxay. lagama sheekeyn karo dhadhankiisa caraftiisa lagama sheekeyn karo. indhihiina waa idin macalin ah. saliida lagu kari xitaa isma dhahaayo. dhammaantii waxaa idinku codsanaa muuqaalka ha noqdo kii ugu laagta badnaa. waad ku mahadsantihiin daawashadiina, koomentiyadiina, dhiirigelintiina. gudihiis xitaa ujeedaan asaga waxaa u maleysaa doorsho camal u maleysaa. qasitaanka waa haddii qasitaanka iska saxdid yaa kaaka cajiib uu kuu noqonayaa maasha allah. waxaa idinkaga tagaa khayr iyo caafimaad. fariid laakiin sheekh mac salaam.